bal la soo xaar haddii iyadoo la jabinayo heshiis waxyaabay u baahan yihiin xalin karno bal ka keen dalab hadday ahayaan waa tegey horay kama tegin meesha ahayd samareebe xamar uu toos u yimid isagoo fariintii wada iyo dalabkii markii uu noo keenay haddana waa aqbalnay waa tanaasulkii shanaad waxaana ku celi waa ka aqbalnay inta saddexdii arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto arrintaasi iyadana war kalaa ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u soconno xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anugu marna ma odhanayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aada moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo samareeb 4 aan oran karno oo kii ugu dambeeyey ah waxaan filayay haddii aan halkaas ugu tagno inaan waxsila soo dhadhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay oo wasiir dube yaa xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaas aysan hore u socon laakiin rajaa jirta waxaan ku ballannay in aan hore u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u samayno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaaskaas ama hakadkaas na galay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17 Sebtembar taasoo hadday suurto gasho ama suurtagal weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada guud ee qaranka kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay walaalayaal annagu diyaar waxaan nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17 Sebtembar waxaa nooga baxay waqti aad u fara badan laga soo bilaabo July June aan idhaahdo sanadkii la soo dhaafay ilaa waan oran karo muddo ka badan 8 bilood 9 bilood weeye intii aan saxiixnay kii dambe waxaa laga joogaa 5 bilood yaa laga joogaa waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho inkastoo aysan dhici doonin firaaqda suure aysan dhici doonin idinku naftigiina inaad la hadli kartaan walaalahan oo aad ku qancin kartaan 17 Sebtembar heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mara keeno ama laga mara dhaliyo wasalaamu calaykum